shirku waxa uu taageeray kacdoonka iska kaashanayaan ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed ee cadowga al-shabaab la isaga xoreynayo wuxuuna ugu baaqay dhalinyarada Soomaaliyeed in ay laba jibaaraan kaalintooda dib u xoreynta dalka. shirku wuxuu ku heshiiyey in wada shaqayn joogto ah ay yeeshaan wasaaradaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda federaalka ah, dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir lana dhiso guddi isku dhaf ah oo xoojiya xiriirka wasaaradaha oo ka kooban 15 xubnood. shirku wuxuu ku heshiiyey inay muhiim tahay in la sameeyo siyaasadda isboortiga qaranka taas oo iska wada kaashanayaan wasaaradaha dhalinyarada ee ciyaaraha ee dawladda federaalka ah, dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. shirku wuxuu isku raacay in la qabto ciyaarihii dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir 17 bisha Febraayo 2023 iyadoo doorkan lagu darayo ciyaaraha fudud iyo kubadda kolayga ah iyadoo la isku raacay in isku aadaadka kooxahana la sameeyo 25 November ee sanadkan 2022. shirku wuxuu tixgelinayaa codsiga wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawlad goboleedka Galmudug ee ah in dawlad goboleedka Galmudug ay martigeliso ciyaaraha dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir sanadka 2024. shirku wuxuu dhiirigelinayaa in la abuuro jawi saamaxaya in haweenka Soomaaliyeed ay qayb ka noqdaan ciyaaraha dalka. shirku wuxuu isku raacay in la qabto shirweynaha dhalinyarada Soomaaliyeed bisha November ee sanad walba iyadoo muhiimad gaar ah la siinayo baahiyaha hortabinta u leh dhalinyarada Soomaaliyeed.